bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal jimco wanaagsan ku soo dhawaada warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb si rasmi ah uga furay shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug oo ay ka qayb galayaan erga matalaysa dhammaan reer Galmudug Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay ciyaartii kama dambaysta ee tartanka kubadda gacanta degmooyinka gobolka Banaadir oo la soo gabagabeeyay shir looga hadlay muhiimadda ay horumarinta waxbarashadu u leedahay kobcinta dhaqaalaha dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe ayaa u geeriyooday xanuun in muddo hayay intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed daawadayaal markana u diyaar garooba isagii oo dhameystiran Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusamareeb si rasmi ah uga furay shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug oo ay ka soo qayb galayaan erga matalaysa dhammaan reer Galmudug ma isku khilaafi karno inaan dhisno Galmudug midaysan ma isku khilaafi karno inaan ka shaqeyno inaan xoreyno deegaanada Galmudug ma isku khilaafi karno inaan caruurteena mustaqbal u sameeyno dib ma noqon karto inaan u talaasulno wax anaga naga weyn oo ah sharafta iyo karaamada dadka Soomaaliyeed iyo kuwa reer Galmudug gaar ahaan caruurta soo koraysa haddii marka aad dareemaysid inuu culays jiro haddii aad dareemaysid shaqadu inay dhib tahay haddii aad ka walwalaysid caawa sideeba dawlad goboleed ku dhismi doona ka walwal wiilka u tahay ama eedada iyo habaryarta aad u tahay oo jooga meel cadow haysto oo halka hami uu leeyahay adigu waxa aad qabato sida aad u fikirto ama sida aad dadka ku dhinac fadhiyo ula shaqeyso waxaan rabnaa shirkan dib u heshiisiinta sida la sheegay inuu soo dhameystiro wixii hore oo Galmudug ay lahayd nidaamka noo degsanaa dad badan oo Soomaaliyeed ay ka soo shaqeeyeen laga bilaabo Galkacyo oo senator Cabdiqaydiid oo nagala joogo dad badan ay madax ka soo noqdeen qaar nool iyo kuwa aan nooleenba nidaamkaas inaan sii xoojino oo uu noo dhalo dawlad goboleed kulligeen aan ku wada qanacsanahay sidaas daraadeed ayaan caawa waxaan halkan ka cadeynayaa marka ugu horeysa in shirkii dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Galmudug uu noo furan yahay kulligeen aan ka wada qayb galayno Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay ciyaartii kama dambaysta ee tartanka kubadda gacanta degmooyinka gobolka Banaadir oo la soo gabagabeeyay waxa warkan inoo faahfaahinaya wariyaheena Nuur Saciid Tahliil tartanka kubadda gacanta ee degmooyinka gobolka Banaadir oo maalmihii ugu dambeeyay si xiiso leh uga socday garoonka kubadda gacanta Stadio Wish Stadio Lugino ee degmada Cabdicasiis ayaa maanta soo gabagaboobay waxaana soo xiray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda ciyaaraha kala duwan ciyaarta kama dambaysta ee tartankani ayaa waxa ay isugu yimid labada kooxood ee ku kala ciyaarayay degmooyinka Hodan iyo Shibis kuwaasi oo garoonka ku soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badneed oo ku dhisneed weer iyo weer celis taas oo soo jiidatay boqolaalka dadweyne ee garoonka Stadio Wish ku sugnaa inkastoo ay ku soo gabagabootay 17 gool iyo 11 gool oo ay guusha ku raacday degmada Hodan duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish ayaa koobka tartankani gudoonsiiyay ciyaartooydii ku ciyaarayay magaca degmada Hodan gudoomiyaha isboortiska gobolka Banaadir Xasan Aadan Yaborowish ayaa warbaahinta u faahfaahiyay marxaladihii kala duwanaa uu tartankani soo maray mudane gudoomiye isboortiga gobolka Banaadir waxa laga soo bilaabo meel hoose maanta wuxuu marayaa meel aad iyo aad u fiican
waxaana aaminsanahay xaqiiqdii maadaama adiga maanta gudoomiyihii gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho shakhsi sportsna ah in isboortiga meesha maanta taagan yahay ka sii sara marayo hadduu Ilaahay yiraahdo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay dhiirigelinta dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshada si dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga qayb qaataan horumarada kala duwan ee dalka ka socda. kaalinta koowaad kooxda ku guuleysatay gobolka Banaadir wuxuu u ballan qaadayaa lacag ah $1,500 taasoo macnaheedu yahay in la dhiirigeliyo bahda isboortiga. kaalinta labaad ayaguna waxaan u ballan qaadaynaa gobolka Banaadir wuxuu ballan qaadayaa inuu siiyo $1,000 iyo kaalinta saddexaad oo la siinayo iyadana $500. dhammaan abaalmarinadaas waxaa loola jeedaa in lagu dhiirigeliyo isboortiga ciyaaraha in lagu dhiirigeliyo. waxaa kaloon abaalmarino noocaas lamida siin doonaa qayb kasta oo ciyaaraha ah oo ku guulaysata koobka tartanada gobolka Banaadir. Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed garoonka kubadda gacanta Stadium Wish magaalada Muqdisho. shir looga hadlayay muhiimadda ay horumarinta waxbarashada u leedahay kobcinta dhaqaalaha dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. waxaa faahfaahinaya Cabdishakuur Cali Axmed. waxbarashadu waa halbeegga lagu cabiro hadba heerka kobaca dhaqaalaha ee dalalka dunida. bangiga adduunka ayaa shirkan ku soo bandhigay horumarka Soomaaliya ay ka sameynayso dhinacyadaasi iyo caqabadaha ku horgudban. waxaana ka qayb galay wasiirada maaliyadda iyo waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. wakiilka bangiga adduunka Hath Raydal waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya ku ammaanay dadaalka ay ku bixisay kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta waxbarashada. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlay shirka waxa uu dul istaagay kobaca dhaqaalaha dalka. waxaanu ka nimid waddo dheer taasoo la xiriirta kobaca dhaqaalaha. waxaanu daboolnay arrimo in muddo ah taagnaa oo ku saabsan soo ururinta dhaqaalaheenna gudaha kaasoo isna sameeyey kobac. waxaa sidoo kale adduunyada aan tusnay sida naloo aamini karo iyo sida dhaqaalaheennu aan u maarayno taasoo xaqiijinaysa sida ugu habboon ee loo maamulayo loona dabageli karo. warbixinta bangiga adduunka iyo waxa aan niri way iswaafaqsan yihiin waxaana warbixinta ay xaqiijinaysaa in ay sax tahay waxa aan dhahnay. xaqiiqdii waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u bedeli lahayn wejiga Soomaaliya qaran ahaan. wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gabagabada shirka la hadlay warbaahinta waxa uu tilmaamay in waxbarashadu ay saldhig u tahay horumar laga sameeyo dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga dalka. daraasadda waxay la gashay sidaad ka aragteenba shirka in waxbarasho la'aan aqoonta waddanka haddaysan kor u kicin dhaqaaluhuna kor u kici karin amnigu kor u kici karin xuquuqda bini'aadamka inay hormarto waddankan dhexdiisa ay kor u kici karin waxbarashada in ay tahay furaha loo maraayo wax walba oo wanaaga oo waddankan inay ka dhacanayto. wasiir Goodax waxa uu intaa ku daray in bangiga adduunka ay ka filayaan $134 milyan oo uu ku taageerayo waxbarashada Soomaaliya sanadka soo aadan. World Bankigu sidiisaba waxbarashada Soomaaliyeed aad u taageera haddii ilaa yiraahdo muxuu ahaa waxaan rajaynaynaa lacag gaaraysa $134 milyan hadda shaqadeedu socoto in sanadkan soo socdo horaantiisa hore bisha February meel lagu gaaro inay soo gaarto. Hadiqan waxay ka tirsan tahay qaybta horumarinta waxbarashada ee bangiga adduunka. kobaca dhaqaalaha iyo horumarka waxa uu ku tirsan yahay dadka aad haysato waxaan ula jeedaa waa aqoonta iyo xirfadda ay leeyihiin dadkaaga. haddii aad haysato howlwadeeno caafimaadsan oo wax soo saari kara waxay awoodaan maalgelinta hantidaada muuqata waxaana ay wax badan u soo saari karaan dalkaaga. Soomaaliya oo ku jirta marxalad soo kabasho ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay sanadihii la soo dhaafay horumar ka sameysay kobcinta dhaqaalaha iyo soo celinta waxbarashada oo saldhig u ah horumarka dalka. Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabaysay dhageysiga dacwadda rag loo haysto qarax 26 November 2018 ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaa faahfaahinaya Cabdiqaadir Ciise Cali. xasan cali macalin barre xasan boy, sayid cali aadan nuur istiin boy, muxudiin maxamed axmed khaliif CJ ayaa dhammaantood loo haystaa inay ka dambeeyeen qarax ka dhacay isgoyska Kaawagodi ee degmada Wadajir 26 November sanadkii tagay. inta la xaqiijiyay ee galay diiwaanka hay'adaha amniga, tirada dhimashada ayaa ahayd 12 qof, halka ku dhawaad 10 qof ay ku dhaawacmeen. dadka ku geeriyooday qaraxaasi waxaa ka mid ahaa Dhamma Maxamed Muxudiin Maxamuud Abooreyste iyo hooyadiis Xaawo Xasan Maxamuud oo ay hore aabihiis u direen maleeshiyada Al-Shabaab 2016. fadhigii hore ee maxkamadda ayaa loo ballansanaa dhageysiga markaatiyaal isugu jira ciidankii rugta jooga iyo dhibanayaal, waxayna xafiiska xeer ilaalinta la yimaadeen fadhiga hoolka dacwad qaadista maxkamadda markaatiyaashii ku xusnaa kiiska. dhinacyada dacwadda ayaa si wadajir ah u weydiiyey markaatiyaasha su'aalaha raaca sharci ee dacwadda u ogolaanayso. baarayaasha kiiska ayaa iyagana laga weydiiyey su'aalo cadeymaha ay u soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta. muumin xuseen cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka hor sheegay in eedeysanaha koowaad ee lagu qabtay gaariga qaraxa iyo kaalinta eedeysanaha labaad ee ah abtiga eedeysanaha koowaad ay wada qaadanayaan mas'uuliyadda mashaqadii ka dhacday Kaawagodi 26 November 2018. qaraxaas waxaa sameeyay isku soo xiray ka soo buuxiya gaariga sayid cali, wuxuuna u soo dhiibay eedeysanaha koowaad xasan cali macalin barre. xasan markii la qabtay haddii qatartiisu gaarigaas ummadda ka badbaadi lahayd, waxaa ogaaday oo soo wacay xasan sayid cali in la haayo. markuu ogaadana automatic wuxuu qarxiya gaariga, isaga gacantiisa ku qarxiya. inuu gacantiisa ku qarxiyana sifooyin cadaynayaan haynaa. 7 gaarigaas gacanta sayid cali ku jiray. gaarigaas waxaa lagu qarxiya tiknoolajiyadda qarxi kartay ee telefoon gaarigaas ku dhex jiri kara intaas haba yaraatee ma jirin. sayid cali uu soo jaajgareeyay telefoonka ku xirnaa gaarigaas mar kale sidiisu. sayid cali waa farsamo yaqaan, isaga gacantiisa ku sameeyay qaraxa, isagana awooday inuu meeshii loogu talagalay markii loo geeyo inuu qarxiyo. dukumiintiyo muujinaya saameynta qaraxa furihii gaariga qarxa ayaa ka mid ah waxyaabaha ay la yimaadeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida. xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdullaahi Buule Kemey ayaa fadhiga maxkamadda ka hor sheegay in eedeysanayaasha ay bareen dadka Soomaaliyeed dhagar cusub oo aysan ku baraarugsaneyn. eedeysanayaashan waxay muujiyeen khidad cusub oo Al-Shabaab ay la soo baxeen. markii hore hadday ku gabanayeen diinta Islaamka oo magacyada abu iyo magacyada diimeed ay isticmaali jireen, maanta waxay u bedeleen Joy, Steam Boy, Hassan Boy, magacyo noocaas isticmaalayeen. dad isticmaalaya asqaabkii alkulistaha oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan. way dhagarqabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore haddii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan. hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii alkulistayaasha iyo qaabkii maxaa la jiray ii sheegay ciyaalsiyaha in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan. maxkamadda sharaf kale waxaan ka codsanayaa labada eedeysana sidii xeer ilaaliyihii ugu horreeyay uu codsaday in lagu xukumo dil toogasho ah. eedeysanaha saddexaad oo ay cadaynaysa dhaqamadiisa la noolaanta uu bulshada kooxdan la noolaa iyo magaca uu bedeshayba waxaan codsanayaa ciqaab xarig oo u qalanta lagu xukumo. wabillahi tawfiiq. abuukaatayaasha u doodaya eedeysanayaasha ayaa maxkamadda weydiistay in la siiyo xorriyadooda maadaama ay eedeysanayaasha qaarkood baxsad ka ahaayeen Al-Shabaab. marka ninkan wuxuu ahaa nin darawal ah, baabuurtan yiraahdo laangaruusulada ka shaqeysa marka ayuu darawalka ahaa. muddo badan ay qabteen ay xireen nimankaas ayagoo ku eedeynay darawalada isticmaashaa. marka ugu dambaysa waxa la hadaan dib dambe jidkan u soo martay waa ku dilaynaa. sidaas ayuu uu soo cararay ugu dakaa gudaha ku deganaa Madiina ku deganaa. ilmihiisa iyo reerkiisa waxa jira marka cabso ku joogay meesha. hal marag ahna meesha lagu soo qoran qiraal asaga ahna lama haayo weligiisna ma noqon. marka 383 oo hadda aadiisa ku qoran waa qof markuu qoro waa inuu ku danaysta ama dambiye kale uu ku galo ama waxyaabo kale uu farsameeyo. hal xabo uu sameeyay male. magacaas uu khaldayna waa sheegay wuxuu inuu darooga iga badatay. baarasna kuma imaanana magaca saxda asaa sheegay oo yiri warmiyo raaliga hada magacii haday in sheegay magacii saxda ma ah.
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda oo saacado badan qaatay dhagaysiga garmaqalka la xiriira saddexda eedaysane intaas ayuu ku dhammaystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta cabdiqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa deegaanka shalambood ka dhagax dhigay xarunta maamulka deegaanka taas oo baahiyo ay u qabeen bulshada si loogu adeego waxaa warkan soo jeedinaya waryaheena cabdiqaadir shacab gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyo mas'uuliin kale oo ka tirsan maamulka degmada xubno ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa kormeer ku saabsan amniga iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada magaalada marka ka sameeyay qaybo kamid ah magaaladaasi gudoomiyaha degmada marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafo ayaa ugu mahadceliyay juhdiga ay geliyeen ciidamada qalabka sida sugidda amniga oo haatan ay ka muuqato magaalada marka dubo kabasho ilaahay waa mahad iska leh nabadan barwaaqadan siiyay ilaahay waan ugu mahad celihaynaa kasokow waxaa mahad balaaran iska leh ciidamada dowladda Soomaaliya 14 October Nissan militariga kuwa deegaanka oo aad u adkeeyay amniga magaalada marka alxamdulillah maanta waxaan u kurgaleynay nabadgelyada magaalada sida ay tahay nolosha dadku sida ay tahay sida suuqooyinka loogu ganacsado ilaahay baa mahad iska leh si jaw degan ayay inoo soo dhamaatay kurgalkayni iyo kormeerkayniba waxaan leenahay insha Allah dadka Allah u ziyaadiyo nabad la haasto ammaanka la haasto barwaaqada la haasto ilaahay noo ziyaadiyo kuwa carqaladeenaayo ama dhibaatayayna ilaahay umad ha ka qabto insha Allah waxaan anagana diyaar u nahay dadku inaan ka warqabaano ogaano dhibaatadooda iyo xaaladooda ula socono haday caafimaad tahay haday tahay nabadgelyo daro haday tahay nolol daro intaba inaan ka warqabaano ayaan diyaar u nahay sidoo kale gudoomiyaha degmada marka ayaa dhagax dhigay xarunta ay ku shaqeyn doonaan maamulka deegaanka Shalambood oo ay bulshada baahi fara badan u qabeen waxaana gudoomiyaha uu sheegay in maamulka uu ka shaqeynayo soo celinta xarumaha dawladda si loogu adeego bulshada Soomaaliyeed nahay tuulada Shalambood waxaa halkaa isugu nimiday inaan ka qayb qaadano dhagax dhiga xafiiska deegaanka Shalambood haddii ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa xafiiskan si nabad ah inay noogu dhamaadaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa bilowgii deegaanka maanta ayaan bilaabaynaa taaganahay dhismi ugu horeeyay waxaan jecelnahay inaan balaarano deegaanka horumarkiisa ka shaqeeyno sidoo kale waxaa bilaaban doona markuu xafiiskan gabagabooba lagu xiji doonaa dugsiga ama iskuulka Shalambood dayactirkiisa ayaa noo bilaabanaya sidoo kale kadib waxaan rajaynaynaa saldhiga tuulada Shalambood inaan asigina maxaa la yiraahdaa dhismihiis ku xigi doona waxaan u soconaa horumarkii deegaanka haddii ilaahay yiraahdo dib nooguma faa'iideysan doono cadow inuu dalkayna burburiyo waan dhuuqsanaynaa labada gacmood aan ku qabsanaynaa waan ka difaacaynaa wixii burburinaya ama dhibaateynaya deegaanka ama degmada iyo maaragtay horumarkeedu Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho bulshada magaalada Gaalkacyo ayaa si isxilqaan ah ku dhisaya wadada xiriirisa deegaanka Bitaale ee gobolka Mudug iyo magaalada Gaalkacyo waxa ay codsadeen in lagu caawiyo waxa faahfaahinta warkan soo jeedinaya waryaheena Cabdirasaaq Maxamed Axmed qaar ka mid ah bulshada magaalada Gaalkacyo oo ku tashanaya maalkooda iyo muruqooda ayaa bilaabay dhismaha iyo dib u hagaajinta wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Bitaale kadib markii isticmaalka wadadaasi ay caqabad iyo dhibaatooyin kala kulmeen dadka iyo gaadiidka ku safra qaar ka mid ah bulshadii u istaagay inay isxilqaan ku hagaajistaan wadadaasi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in markii ay u adkeysan waayeen dhibaatada isticmaalka wadada ay ku qabaan ay garteen inay isku tashi ku bilaabaan dhismaha wadadaasi baahi badan iyo burbur badan baa jiray urur la yiraahdo isxilqaan ayaa markay arkeen baahida iyo burburka meesha ka jirta ayaa waxa isku xilqaameen wadadan inay sameeyaan cagafta makiinada waxa sameynaysa nin
baan ugu saaciday Cumar la yiraahdo gudoomiyaha deegaanka gobolka sida waxaan anagu aragnay baahida nahaysa iyo deegaankii gaadiidkeennii dhammaan baahida nahaysa waxay tahay wixii waddadii aan maraynay way naga xidhantay shacabka reer galmudug dhan meel kastoo ay joogaan maamulka gobolka dhammaantood waxaan ka codsanaynaa inay wixii waxqabada nagu taageeraan annagu wixii aan qaban karnay intaasaan qabannay waana bilownay haddana waxaan jecelnahay inaan wadno dhammaystirno hadda wadda jira saa ogtihiinba isku xir iyo isla xiriir ma jiro hadduu xiriirku yaraadana isfaham baa yaraanaya waxaan aad iyo aad u boorinaynaa cid ilaahay waxsiga kulligiis inay ku dadaalaan inay ka qayb qaataan inay aad iyo aad iyo aad u soo dhoweeyaan kii maskax haya kii muruq haya kii maal haya insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu maalkaas u kala baxo aakhiro u baxsado maxaa yeelay waddadu waa booska masjidka kala joogtaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee arrimaha samafalka iyo horumarinta mashaariicda Cabdullaahi Warsame Cawaale Cumar oo isagu ku deeqay qaar ka mid ah gaadiidka waddadaasi looga shaqeynayo ayaa uga mahad celiyay dhalinyarada isku xilqaamay hagaajinta waddadaasi maanta meesha ay marayso anigu waa mahad celinahay mahadda ilaahay baa iska leh gabadeedna mahadda iyaga iska leh iyo kuwa meel kasta joogana waxaan leenahay war walaaluhu maalin baa meel bay joogtaa haddii maalin wax kale laydii soo wici jiray maanta waxa laydii soo wacay oo laydka doonahayaa oo laydka raadaya waa horumarkii waad ogtihiin waddamada aad joogtaan waxa lagu dhisay iyo contributionka iyo frontiirka iyo iskuulaadka iyo salaadka iyo waddooyinka waa iskaa wax u qabsada adduunkao dhan lagu dhisay oo ummadda hooyada dhibaataysan oo umusha ah oo la soo qaadi waayey oo jir ay weyday meesha lagu soo qaadi lahaa wey dariiqa lagu soo qaadi lahaa oo isbitaal iyo caafimaad iyo dhan walba looga soo gaarsiin lahaa agoonta isbitaalka waxbarashada laga soo gaarsiin lahaa walaalayaal biyaha ummadda looga soo gaarsiin lahaa waa duruufta ugu adag wey marka waxaan codsanahay dhammaantiin in walaalayaal ka qayb qaataan wasalaam waddada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo iyo Bitaale ayaa gaaraysa masaafo ku dhawaad 50 kiiloomitir ah taas oo isticmaalkeeda dhibaatooyin badan lagu qabay waxaana tallaabadan ay qayb ka tahay barnaamijka isxilqaan dalkaaga ku dhiso Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo halka aad warkaasi kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed markana akhbaraadka dibadda madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa u geeriyooday xanuun in muddo ah hayay war ay shaacisay dawladda Zimbabwe ayaa sheegaya inuu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe ka oo in muddo ah xanuunsanaya eheladiisa ayaana warbaahinta u xaqiijiyay war qoraal ah oo bartiisa Twitter-ka uu ku qoray wasiirka waxbarashada Zimbabwe ayuu uga hadlay geerida madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe isagoo yiri nabad ku naso madaxweynihii hore ee Zimbabwe oo geeriyooday ayaa ahaa 95 sano jir waxa uu in muddo ah la jiifay xanuun hayay iyo sidoo kale gabow isbiirsaday waxaana lagu daweynayay isbitaal ku yaala dalka Singapore oo weligii caafimaad ahaan u aadi jiray muddo sanad ka hor ayuu xilka ku wareejiyay Emerson kadib markii militariga dalkaasi ay afgambi ku rideen maamulkiisa Mr Mugabe waxa uu xilka looga qaaday afgambi military bishii November ee sanadkii 2017 taa oo soo afjartay xukunkii socday in ka badan 30 sano Robert Mugabe waxa uu dhashay 21 February 1924 waana shakhsi taariikh weyn ku leh dunida inta badan laguna yaqaanay hadalla cadcad oo aan lahayn cabsi marka uu la hadlayo siyaasiyiinta reer galbeedka ah Mr Mugabe waxyaabaha uu soo maray noloshiisa waxa qayb ka ahayd in uu xabsi ku jiray in ka badan 10 sano kadib markii uu eedeeyay dawladdii gumaystaha sanadkii 1964 sidoo kale door weyn ayuu ka soo qaatay dhismaha dawladnimada iyo hogaaminta dalkaasi balse waxa uu ahaa qof in muddo ah xilkaasi hayay taas oo keentay in uu ugu dambeyntii xilka laga tuuro warkii oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo ay idin soo jeedinaysay anigoo ah Maran Janaqo Axmed waa naga intaa tan kulan dambe nabadgelyo